Mid ka mid ah dadkii hore ee wanaagsanaa ayaa yidhi, waxaan ahayn kuwo cilmiga ka raadiya masaajidda, kadibna waxaa la furay iskuullo, cilmigii waxaa ka baxay barakadii, waxaa la dhigay kuraas, waxaa tagtay isdhimrintii, waxaa la keenay shahaadooyin, waxaa meesha ka baxay ikhlaaskii iyo daacadnimadii. Waqtiyadii hore waxaa la arki jiray masaajiddo laga raacdo kutubada, dad badan ayaa cilmiga ku baran jiray. Hadda waxa way dhammaadeen, masaajidda sidii hore looma yimaado, dad fara ku tiris ah ayaa taga haddii kitaab laga akhrinayo. Taas waxay sababtay in ay yaraadaan masaajidii kutubta laga raacan jiray ama laga akhrisan jiray. Kadib markii la waayay cid danaynaysa, qormadan waxaan ka baran karnaa in horumarka dhabta ah ee cilmiga uu yahay mid ku dhisan daacadnimo iyo yaqiin dhab ah, isla markaana aan la ilaawin asalkii iyo goobihii barakada lahaa ee laga dhaxlay.